waa mid ka mid ah hal-abuurka iyo bandhigga hibooyinka jiilkeena ee u baahan in la soo gudbiyo si ay u helaan bulsho ku taageerta bilowgooda wanaagsan. Waxa ay dhigtaan fasalka koowaad ee dugsiga sare ee mu'aasasada Imaamu Shaafici ee magaalada Muqdisho, iyaga oo ku dhiiriday inay sameeyaan qalabkan kala duwan ee idin muuqda sida shaybaarro, qaybaha kala duwan ee qalabka kombiyuutarka oo isugu jira laptops iyo kuwa kale ee desktopka loo yaqaano. Maadooyinka loogu dhigo iskuulka ayay ka mid tahay maadada tiknoolajiyadda, taasi ayaana ah midda sahashay in isku daygoodii koowaad uu sida noqdo, waxaana ay aaminsan yihiin inay soo saari karaan qalab kale oo kan ka tayo iyo tabar wanaagsan. Qaar ka mid ah ardayda sida gaarka isugu howlay soo saarista qalabkan ayaan kala sheekaystay wadiiqooyinka ay u mareen iyo caqabadaha ay kala kulmeen intii ay ku guda jireen hawshani. Macallinkayga Axmed wuxuu nagu dhiirgeliyay inaan sameeyno tiknoolajiyada kombiyuutarada. Hadda anigoo ka hadlayo maxaa sababta aniga markaas dhahay intaasoo mar waxay ka khaldamayaan. Hadda anigu wax badan way khaldameen, waligaana mala sabro hadda wax sameynaysid. Aniga hadda waa sameeyay, macallinkayga dhiirgeliyay Axmed ku mahadcelinaya. maadadaas oo ah technology anigu waxaas dhimi weeyaan horta in ka weynaan sameeyo, laakiin markii dambe waa isku dayay waana sameeyay. Ardayda kalena waxaa ku dhiirigelinay inay sameeyaan. Macalinkeena wuxuuna dhahay sameeya kuwa awalba markii loo diray waxaas dhahayna sameynaysiin, laakiin markaa isku dayna waa sameeyay. waxaan maanta ku guuleysanay inaan sameeyno isku day badan ka bacdi waan sameynay. wax badan naga khaldamay, wax badanna way noo saxmeen. alxamdulillah dadana way noo saxayeen. Ustaadkay Shariif Axmed Cali Yuusuf Ilaahay khayr siiyo wuxuu noo dhigay maadada technology, wuxuu noo baray inuu computer ku kala baxo 3 qaybood. waxaana kamid ah desktop-kana ujeedinaya soo sameeyay isku dheer kadib wax badan naga halaa, wax badan oo noo saxmeen. noocyada kombiyuutarada ay hal abuureen shaqadooda waxaa ku jira kuwa loo yaqaano Apple-ka, HP iyo kuwa kale. waxay sidoo kale sameeyeen keyboardka laga raaco tilmaamaha qoraalka aaladda kombiyuutarka. Bare Axmed Cali Yuusuf oo ah macalinka u dhiga ardaydan maadada tiknoolajiyadda ayaa sheegay in ardaydu ay soo saari karaan intan iyo in ka sii badan haddii ay helaan dhiirigelin dhan waliba ah. maadada tiknoolajiga waa maado ku cusub ardayda si guud Soomaaliya. maadadaas marka macnaha ay wadato waxay tahay technology oo ah farsamo. marka farsamada adduunka la isticmaalo waxa uu mashiinaha la isticmaalaa fara badan. marka mashiinka adduunka uu isticmaalo tiknoolajiyada ilaa hadda laga maarmi lahayo waa kombiyuutarka. ardayda waxay soo qaateen kombiyuutarka types of computer, qaybaha kombiyuutarka wali PC-ga qaybaha u qaybsamo. dabcan waxaan ku dhiirigelinay inay kombiyuutarada ay ku sameystaan asagoo plastic baakad ah. marka waxaan jeclaysanay marka ardayda inaan ku dhiirigelino inay sameeyaan naqshadeyn hardware-kan caadiga oo baakad ah, ayagoo hamiga aan u gelin in mustaqbalka ay abuuri karaan asoo macnaha sameysan oo shaqeynaya insha Allah. maada ahaan u qaataan macalinkooda wuxuu ku dhiirigeliyay in maadadaasi ay u soo bedelaan naqshada sawirka buug u sawiran ayadoo la taaban karo oo la fiirin karo oo la qaajin karo. marka runtii isku day fiican sameeyay labada arday u jeedeen maanta waa Microsoft-kii oo aan shaqeynay laakiin systemkiisu u dhameystirayaan waxba ka maqleen. waxa waa dhiirigelin waxa ku filanba inay ardayda kale ka soo muuqdeen ay soo noqdaan arday macnaha ardayda ka duwan. taasna waxay u tahay dhiirigelin weyn. Goobjoog TV ayaa arintaas naga gacansiisay waan ka mahadcelinaa insha Allah. dhiirigelin ka weyn ma jirta ardayga in magaciisa iyo adduunka la wadaaga naqshada uu sameeyay. waxaan rajaynayaa insha Allah dadka daawanaya inay ardaydaas ku sii dhiirigelinayaan naqshadooda inay sii sameystaan ayadoo run oo shaqeynayso. waa bilow iyo hal abuur wanaagsan oo ay mudan yihiin in lagu dhiirigeliyo ardaydan iqtiraacay qalabkan kala duwan ee idin muuqda. waa xaqiiqo in looga maarmi karo qalabka kala duwan ee laga soo dhoofiyo dalalka shisheeye haddii inta karaankooda ah lagu bogaadiyo. Jacfar Maxamed, Goobjoog TV, magaalada Muqdisho. magacayga waa Saciida, waxaan ka imaaday Soomaaliya, waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.